Mareykanka ayaa dib u fasaxay kaalmadii Soomaaliya ee la siin jiray kadib markii oo dowladda Soomaaliya ay sheegtay in dib loo soo celiyay raashinkii laga dhacay keedka hay'adda WFP ee dekedda magaalada Muqdisho ku yaala. dowladda Soomaaliya ayaa Arbacadii shaaca ka qaaday inay si degdeg ah ay dib ugu bilaabayso kaalmada gargaarka raashinka ee Soomaaliya. Talaabadaas ayaana soo afjartay halka toddobaadii qaatay oo ku yimid kadib markii la sheegay in la jabsaday baqaar ku yaala dekedda Muqdisho oo ay ku jireen raashin gargaar oo Mareykanku maalgeliyay. Go'aanka ayaa yimid maalmo kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah u qaratay inay lahayd mas'uuliyadda dhacdadii ka dhacday dekedda Muqdisho, halkaas oo saraakiisha dowladda ka tirsan ay burburiyeen xarun ay lahayd hay'adda cuntada adduunka ee WFP isla markaana ay la wareegeen raashin gargaar xilli ay socotay ballaarinta dekedda. Mareykanka wuxuu bogaadinayaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday mas'uuliyadda talaabooyinkii saameeyay howlaha WFP ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay xafiiska gargaarka dibadda ee Mareykanka. Warbixinta kadib waxaa dib loo bilaabi doonaa qaybinta cuntada WFP anagoona isla markaana sii wadi doona dib u eegista ballaaran aynu ku sameynayno kaalmada aan siino Soomaaliya. Mareykanka ayaa joojiyay gargaarkii cuntada 7 bishii January iyadoo dhaliilayaan siyaasadda dulqaad la'aanta ee zero tolerance policy ee ku aadan leexashada hantida Mareykanka. Maamulka madaxweyne Donald Trump oo qaaday talaabooyin adag oo lagu kormeerayo gargaarka shisheeye ayaa ka digay in maalgelinta mustaqbalka ay weli ay tahay mid si dhow isha loogu hayo. Madaxweyne markana